بسم الله الرحمن الرحيم أنا أخيرا كسر دواء شبكة صادق tutorial كان مانتي waxaan ku arki doonaa qaabka aad usoo degsan lahayd editorka aan koroska ku isticmaali doono oo la dhaho Eclipse download. Google ayaa tagaysaa Eclipse download ay qoraysaa, laakiin Eclipse waxa ka horeeya marka koowaad inaad heshin maxay wax la dhaho JDK download oo labadooda waa free. Google hadii aad ku qortid marka aan ku hormarno Eclipse-ga linkiga ugu horeeya tag markaad raadisid JDK download kadib waxaad sii tagtaa download sii tag linkigaas ku dhufo. kadib aniga waa soo degsaday kadib accept agreement dheh. markaad dhahdid kadib waxaad samaysaa waxaad doorataa windowga operating systemka aad isticmaalaysid. markaad dooratid kadib waxaad doorataa typeka ka sii yahay. For example oo kale window oo kale aniga window waa isticmaalaya window 86 minus 32 bit ma isticmaalayo, waxaan isticmaalayaa window 64. kadib linkigaas ku aadan riix marka ku dhufatid kadib soo degso. sidoo kale markaad soo degsatid JDK-ga waxaad dhahdaa install leh. markaad ku shubatid computerkaaga waxaad tagaysaa sida kadib meesha aad ku shubtay adiga yaqaan. aniga meeshaan uu igu jiraa Java. markaad tagtid linkiga korotag meeshaan markaad joogtid markay waxaad samaysaa pathkan copy soo dheh. marka copy soo dhahdid waxaad tagtaa right click the PC ama control panel ka tag waxaad sii tagtaa haddana advanced system settings. kadib meesha markaad joogto marka waxaad dhahdaa environment variables tag. gaar ahaan waxaad tagtaa qaybtan la dhaho system variableska waxaad raadisaa marka path waa kana double click dheh ama edit dheh. kadib pathka markaa aniga uu igu jiraa waa kana pin, laakiin adiga kuguma jiro meesha u dambaysa tag semicolon dheh. kadib pathkii paste ku dheh aniga waa sameeyay. kadib okay dheh si markii aad u check garaysid in ku shaqeynayo waxaan leenahay cmd da tag. I think inay ahayd waxaa la qori jiray Java version. I think saas inay ahayd. yes waa saxanahay. waxaa leedahay Java space minus version, yani wuxuu ku sheegi doonaa versionka computerkaaga ku shuban marka intaad samaysid. kadib now waxaan u jeednaa in waa 64 bit waa kan soo degsaday. hadda JVM iyo Java compiler computerkeena wuu ku jiraa. waxaan u baahannahay marka editorka inaan soo degsano. editorka marka waxaad tagtaa qaybtan iga xir editorka asna markaa qortid Eclipse download linkiga koowaad ku dhufo. markaa ku dhufatid waxaa jira editors badan aad isticmaali kartid. waxaa leedahay marka qaybtan aad u jeedid Oxygen get Eclipse Oxygen waxaa leedahay download 64 bit. aniga hadda waa soo degsaday saas ayaa kusoo degsan kartaa. tutorialkeena maantay waa kii ugu dambeeyay section 1 oo aan uga hadlaynay introduction. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.